madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Qoorqoor ayaa caawa ku qaabilay hoyga uu ka degan yahay nawaaxiga garoonka diyaaradaha taliyihii hore nabad sugidda Fahad Yaasiin iyo xubno kale oo la socday. Xubnaha la socday Fahad Yaasiin ayaa waxaa ka mid ahaa wasiir dowlaha gaadiidka cirka dhulka Cabdiraxmaan Dheere iyo sidoo kale wasiirka boostada Galmudug Aadan Qoryole oo loo arko labada nin ee aadka ugu dhow taliyihii hore nabad sugidda Fahad Yaasiin. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimaha weli taagan khilaafka ka dhexeeya madaxda sare ee dowladda iyadoo madaxweynaha Galmudug madaxweyne Qoorqoor ayaa loo arkaa inuu yahay nin wax badan ka gala oo galaangal badan ku leh dhanka xalinta khilaafaadka ee maalmihii ugu dambeeyay u dhaxeeyay madaxweynaha Farmaajo iyo sidoo kale Ra'iisul Wasaare Roble. Waa markii labaad oo Fahad Yaasiin uu banaanka ugu soo baxo madaxtooyada tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay Muqdisho toddobaadkii hore, waxaana weli amnigiisa sugaya ciidanka loo yaqaan Waran oo ah ciidamo si gaar ah ugu tababaran hay'adda nabad sugidda Soomaaliya. Waxaana wararka ay sheegayaan in ay weli Fahad Yaasiin uusan faraha kala bixin arrimaha nabad sugidda dalka Soomaaliya isagoo madaxweyne Farmaajo uu u magacaabay la taliyaha amniga qaranka.